dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkaan iskugu yimid ee soo dhaweyntan sharafka badan ee maanta halkaan loogu sameeyay waa idin salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin waa mahadsantihiin waxaan marka hore idiga mahad celinaynaa soo dhaweyntii quruxda badneed intii hore inay ka jilcaneed ama ka qurxaneedna dee waxaba sheegay islaam cabdi xaajiyaa sheegay waa ku mahadsan yahay wixii uu sheegi lahaa meeshaan ku habboonayna waa sheegiyey wixii uu qeyrsanna dib aan uga sheekaysan doonaa islaamka intaas ka badan inuu sheego lama rabin marka waxaan idiga mahad celinaa marka hore marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad soo dhaweyntii qiimaha iyo qaayaha lahayd xushmada iyo walaaltinimada iyo ay ku dheehneed wadaninimada lahayd aad lagu soo dhaweyseen waa idiga mahad celinaa marka koowaad iyo marka labaad waa idiga mahad celinaa maamulka gudoomiyaha gobolka uu hogaaminaa heer gobol iyo heer degmo iyo heer xaafadeed iyo saraakiisha ciidanka qaybihiisa kala duwan na si gaar ah ugu mahad celinoo soo qabaqaabiyey soo dhaweyntan ilaahay waxaan ka toogaynaa marka hore abaarta aad sheegteen oo gudoomiyaha gobolka soo u sheegay ilaahay waxaa laga toogaa ilaahu col iyo abaar aan kaa magan galnay haddaana ilaahay aan ka toogaynaa in ilaahay colkii abaartaba laga dejiyo oo ilaahay roob qayr qaba iyo oo aarama oo nabad ah oo dadkii dunyada u roon oon aafo wadan ilaahay loo keeno ilaahay aan ka toogaynaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan abaartaas waa ka jirta ilaahay waxaan ka toogaynaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan in ilaahay u naxariistaan ka toogaynaa annaga reer Hirshabeelle nahay in ilaahay uu si gaar ah loogu naxariisto ilaahay aan ka toogaynaa annaga reer Hiiraan haddana nimaado oo Hiiraan caasimadiisa aan joognaahe waxaan ognahay daruufaha ka jira waa ogna dib u heshiisiina loo baahan yahay waxa loo abaara jirta xooluhu wacyi ku sugan yihiin aan ognahay dadka inuu miyi u badan yahay miyiga daruufaha ka jirana waa ogna waxayna ila tahay hadda miyi iyo magaalo in daruufta aan la kala qarsan ilaahay waxaan ka toogaynaa horta ilaahay daruufayn hadda boolo ilaahay daruufayn hadda boolo waxaan codsanaa ilaahay dadku mugay isku naxariistaan oo u naxariistaahe annagu horta koow aan isku naxariisano annagu koow aan iscafino annagu koow aan israboonno dhinacan isla aadno dadka ilaahu waxay ku duceystaan xoog badan wax ma taro xoolo badan wax ma taraan ilaahu muwaafaqa wax tarta ilaahu annaga waxay intay wax nagala dhaxayaanba muwaafaqa naga dhig horta saasaan ku duceysano niyadna naga ahaato aanan ka wada shaqeyno muwaafaqadaas kulligiin waa wada mahadsantihiin dhinacan iskula jeednaa waxa muhiim ah in dhinac la iskula jeesto dadku haday isku niyad noqdaan ay dhinac iskula jeestaan ayay meesha u socdaan gaaraan danahoodana ay dhamaystirtaan ay ka shaqay karoodaan haddaan muwaafaqo noqono dhinac isla aadana ilaahayna aan tala saarano يعني wax kasta oo laga hor yimaada waa iskaga filanna waa iska leexin karnaa anaga waxaan xagga u joognay waxay ahaayeen danaha doorashada ugu badnaay waxyaabahan kaga soo guuleysanay kamid tahay waxa intaas dheer waxaan kaloo aan rabnaa meeshaan doorasho lagu qaban rabaa haddii ilaahay idmo doorashadu haddii hadda dad badan ayaa jooga magaaladan dadkii loogu talagalay waa joogaa dad ay inta hadda magaalada joogta aan wax badan ka yarayn ayaa imaan doono ama ergo ku imaan doona ama musharaxnimo ku imaan doona ama taageero ku imaan doona waxaan codsana ciidamada amniga iyo maamulka gobolka iyo heer gobol iyo heer degmo waxay ka shaqay doonaan nabadgelyada doorashada ka shaqay doonaan shacabka reer beledweyne waxaan ka codsana ama reer Hiiraan waxaan ka codsana ama reer Hirshabeelle waxaan ka codsana inay ka shaqeeyaan ay la shaqeeyaan qolada amniga ka shaqeynaysa oo amniga doorashada ka shaqeynaysa inay la shaqeeyaan aan ka codsana doorashadii waa lagu jiraa isteediyada kale waa bilaabeen oo waa ogtihiin annagana waa bilaabaynaa haddii alla idmo waxa hadda laga dhiman oo wali aan la noqonaynana raggaas xiraay arrimahooda
iyo waxyaabo kale oo yaryar oon ayagana aan dhammaystiri doono haddii alla idmo doorashada waxaan codsanaa marka intaan hadalkayga ka bixin waxaan codsanaa oo ku celcelina amnigeeda waa laga shaqaynaa shacabka waxaan ka codsanaa inuu la shaqeeyo ciidamada amniga inuu la shaqeeyaan shacabka ka codsana oo meesha ciddii ilaahay wax u alfaa heli doonta kursi walbana oon qabiilka iska lahaa ku tartami doona qabiilka qofkii alla u alfaana ka heli doona soomaalina waa ogti dadkana waa ognahay qof walba hadduusan helin asagu kursiga oo qabiilku leeyahay na uu soo doonay wuxuu dhihi doonaa cadaaladdarra meesha ka dhacday aniga cadaaladdarra lagu sameeyey de waxaana laga yaabaa hal kursi oo qabiil leeyahay in 10 qofood ay u socoto doorashadaas marka annagoo gacmaha is haysana ilaahay ka tuugayna wixii deegaankan iyo dadkan u abshireen ilaahay waafajiyo qofka dawladnimada u abshira oo state-kan u abshira dawladda Soomaaliyeed u abshira oo qabiilku metela u abshireen ilaahay la waafajiyana ilaahay ka tuugayna waxaan ka codsanaa beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka jooga ee dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa jooga Hirshabeelle inay gurmad degdeg ah sameeyaan ay biyadaan iska bilaabaan baad hadii heli karaan ay ku daraan arintaas si degdeg ah u codsana beesha caalamka ka codsanayna waqti adagaan ku jirnaa dadka inuu sanadkan waa liita abaar 2 sano ah isku xigtay xoolihii waa ka dhamaadeen beer uma bixin biyo bax waa uga horeysay waxaan ka codsanaa beesha caalamka iyo ummadda muslimiinta iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka inay gargaar degdeg ah ay dadkan la soo gaaraan aniga madaxweynaha Hirshabeelle waa iswarsanna waxaan madaxweynuhu caradii waa aada abaar adaguna waa jirtaa biyalaana loo baqtiyo waxa talahani xaan ka geeya madaxweynuhu wuxuu yiri 114 reer Hiiraan igu salaan gaar ahaan reer Balweyne igu salaan horta reer Hirshabeelle 100 booyadood biya ay reer Hirshabeelle bixinaan oo madaxweynuhu waxay ku ugu deeqaanaan horta bixinayna intaas madaxweynaha Hirshabeelle taladiisa ay haad iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay ka soo tashadeen waana bixinaynaa sida loo kala daran yahay iyo sida dadku u kala gaaraan ayaanan u bixin doonaa hadii Ilaahay idmo waxaana farsameey doona maamulka gobolka iyo degmada iyo intii kale maaragtay farsamo ay uga dhamaa waayaan aad iyo aad u mahadsantihiin qaybta dib u heshiisiinta rag wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta federaalka iyo wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle iyo rag igad ka socda waa isku soo darnay waxaan u talagalnay inay naga soo horeeyaan maamulka gobolka ayagu isla shaqeeyaan dib u heshiisiintii bal sidii loo amba qaadi lahaa la iska sii warsado waqti adagna waa lagu jiraa doorasho waa jirtaa abaarna waa jirtaa colna waa jiraa waxaasoo dhan inaan gacanta bidixda ku qabanno dib u heshiisiinta gacanta bidixda aan isku la qabanana dadka intiisa badan waa isla garanay ayadana inay meesha hadda qoladaas ay ugu joogto maamulka gobolka iyo qoladii iga soo horeysay oo arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle meesha wax u marayaan ayaan iswarsan doonaa halkaas ana ka sii abaqaadi doonaa hadii Ilaahaydu aad u mahadsantihiin waa is wada arki doonaa koox iyo odayaasha qaybahooda kala duwan ee dhaqanka culumaa diinka saraakiisha ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada kulli waa is arkayna madaxweyne ku-xigeen ku soo dhawow aeroboortka ugaas qadiif waxaa salaantaada u diyaara booliiska Soomaaliyeed qaybooda kala duwan ku soo dhawow madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow dadkaada iyo dalkaada ku soo dhawow mudana madaxweyne saddex waa dan ka hadal saddexna waa dan guud midna adaa gooni ku leh Hirshabeelle
madaxweyne ku-xigeenkeeda adoo ah 3 jeer meeshaan timid sida maanta lagu soo dhaweeyay barka ka hor ma aan arag isbedel aan dhacay 63 baabuur ku soo dhaweysay 27 dawladda la inta kala shacab ah xogaa qodbada iyo sawirkay ka cabsoodaan maahayna ka maqalno waxaan ku hadlo hadda la maqan yahay waxa kale arrimo waxa noola timaad oo noo sheegto ka ambaqaad waa maahayna waxa noo wada anagu helnam hadda kama hadli kara laakiin waxaad ogaanaysaa maalintii hortoo timid iyo maalintii ku xigtay iyo saake waji cusub marqaati ma doonto waa afka in xukumin laakiin sidoo weynta ka garo mid kale hal isku sabro dulqaad hal yeesho qayrka in aan ka daba tagno umadu meesha mari hal maro ilaahana wax dile ee bilaaadna wax ma dile soo dhawaada waftiga loo yimid oo madaxweynuhu hogaaminayo soo dhawaada gacno furan qalbi furan walaaltinimo waalidnimo aad iyo aadaan idin soo dhaweynaynaa waxa qoloocan ayaga iska soo toosi doono waxaan leeyahay marka maanta gobolka Hiiraan wixii dan u ah hal la qabsadaan leeyahay waxa Hiiraan dan u ah waxaan dan u ahayn yaa gadaal loo fiirin dawlad xun hadaad aragto dawlad aanay ka fiican tahay marka waxaan rabaa hadda ma baxumatano waa Hirshabeelle soo dhawaada ku soo dhawaada Hirshabeelle ha jirto ha joogto hees raacdo waxaan u malaynayaa looma kala harin hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay ugaasyada hadday tahay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo hadday tahay xildhibaanada heer federaal ilaa heer state hadday tahay madaxweyne ku-xigeen cid kasta wasiiro in Hiiraan 25 kursi madmadow ayaa awal ku jiray laakiin maanta banaanka ayaa ka cadahay waana ku wada diirsanay alxamdulillah waxaana ka sugaynaa tusaalahaadii iyo tilmaamahaadii iyo waxqabadkii aad yacnaha mataqaanaa kaaga baranayna waynu ka sugaynaa annagana waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo awaamirta aad nafarto iyo waxaad noo sheegto inaanu qaadanaan diyaar u nahay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar mudane madaxweyne dhammaan dadka halkan isku yimid oo shacabkaadii waxay kugu yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan waxay kaaga hortageen garoonka halkanna way kugu soo dhaweeyeen markaanu kaaga warbixino magaalada xaaladeedu waa amni wax qalqal oo weyn oo ka jira ma jiro dhammaan shacabka magaalada beledweynena waxay u heelayeen ay sugayaan riboodkaadii maadaama aad ahayd madaxweynihii oo noogu maqan shaqo oo noo aaday xamar oo dawladii dhexe federaalka ee noo aaday xilligaana oo ahaa xilli xasaasi ah oo doorashooyinkii qaranka la sugay inay bilowdaan sida aawadeed farxad iyo rayn iyo wanaag ayay kugu soo dhaweynayaan mudane madaxweyne salaan kadib mudane madaxweyne haddii aan warbixin kooban ku siiyo xaaladda maanta Hiiraan ka jirta xaalad aad u adag oo aan filayo haddaan ilaahay uru bixin dawlad ka jawaabtana aan la helin xaalad bini'aadanimo ayaa khatar loo yahay oo aad u ba'an in la galay oo halis u tahay waxaa dadkan u kulmay 3 marxaladood cadowgii Soomaaliyeed oo ayaga aad isugu koobay sidii maskiisa ugu duuduubsamay halkii wadaha u dambeysay Soomaaliya isku xiriis way go'an tahay wada kalena waleysay u furnay colaad qabaa'ilana waa jirtaa oo waad ogeydeen in kasta oo hadda gacanta lagu hayo sidii xal looga gaari lahaa abaar ba'an oo aan filayo anuu kulley intaan soo gaaray nooca waxa tii 74 madaxweynahan u dayn doonaa laakiin annaga garbiisaan ahayn shirarkii uu xamar ka soo qayb galay iyo hawshu idinku maqnaa qaybaan ka ahayn asaa hormuud noogu ah reer Hirshabeellow dawladda aad haysataan
waxaa la rabaa dhibaatada jirto dhan waxa looga bixi karaa dowlad la'aan lagama bixi karo in dowladdaas labada gacmood lagu qabsado la garab istaago waxay ka dhiman waa dhammaystirmi doonaan qof waliba kaalin uu ku leeyahay oday hadday tahay hadday dhalinyaro tahay hadday caskari tahay hadday maamulka tahay qof waliba kaalintu ku leeyahay in la qaato loo baahan yahay waxaan ka mahad celinaynaa dadkii saakana soo dhoweeyey oo reer hiiraan oo garoonka tegey oo wakhti dheer joogay oo lagu jiro muxuu ahaa cadceed iyo wakhti jilaal ah aadaan uga mahad celinaynaa marka hore marka labaad haddaan u soo dego safarkeenna ujeedkiisu waa ugogolxaar doorashadu inay ka dhacdo magaalada beledweyne waxaana soo daba jooga haddii ilaahay yidhaahdo dad fara badan oo ama xilal raadina oo xildhibaana rabo ama xilal ku fadhiyey ama musharaxiin ah ama dadweyne ah waxaan rajaynaynaa inay magaaladan isugu timaado dad aan ka yarayn ilaa 10,000 oo qofood oo ay magaalada beledweyne martigeliso doorashadii ka dhacdo si xasiloon uga dhacdo lagu tartamo iyadoo xaq iyo free and fair ah taasaan hor u dhacaynahay safarkeenu ku saabsan yahay madaxweyne ku-xigeenku nagu hogaaminayay safarkeenu intaas ayuu quseeyaa Santo via an raanay